xaflad lagu daahfurayo xarun weyn oo xawilaadda Amal Express ka furtay Oslo ayaa ka dhacday xaafadda Soomaalida Oslo u badan tahay ee Greenland. Xafladan ayaa timid kadib markii xawilaadda Amal Express oo la shaqeynaysa Dalmar Money Transfer ay ku guuleysatay inay Norway ka hesho shati weyn oo aan xadidnayn una saamaxaya in Amal Express dirto lacag intay doonto furtana ajensiyo xawilaadeed oo ka hoos shaqeeya Amal Express. xafladda ayaa ugu horeyntii waxa aayado Qur'aan ah ku furay Sheekh Axmed Shariif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. sidoo kale waxaa xafladda wacdi ka soo jeediyay Sheekh Adnaan Cali oo loo yaqaan Sheekh Caafi. الحمد لله كفى والصلاة والسلام إله ما هذا إسكال وريال جل جلاله وخالقنا وإلهنا خبرنا أبو ري والرزقنا الرزق يا ورزقنا النصير يا هو حافظنا والله أن حفظنا يا مرتا بقدرته إلهي أودي سأيو نجو حفظنا يا ونجو إلالنا يا ونجو رزق يا مرتا سدردد أيا إلهي تبارك وتعالى آذنها أيو حق ويا شيء إني عبدان iyaguna waxay xaq u yeesheen inuu rasaaqo Ilaahay tabaaraka wa taala oo waxa ay doonaan adduunyada uu siiyo sadaradeed ayaa adduunyadan ay tahay imtixaan daarul imtixaan adduunyada dadka waa la keenaya si Ilaahay ugu caabudaan Ilaahay ugu gartaan wayna noqonayaan oo Ilaahay bay u noqonayaan si Ilaahay tabaaraka wa taala marka uu xisaabiyo sadaradeed inta yar adduunyada qofku uu joogo ayaa la doonayaa qofku cibaadaadkiisa inuu hagaajiyo akhlaaqdiisa inuu hagaajiyo muaamalaadkiisa inuu hagaajiyo muaasharadiisa inuu hagaajiyo aadanaha ولا دقم يدك مد والبحق بكله إنه حقيسة إنه سيو إلهي بحق كاظله وحليه وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب دين عجائب كده حكم ده ككلفة دي حق يلنا يا كجارك حق يلنا يا كاودا سفرتان حق يلنا إلهي حق يلنا والدك حق يلنا حق الله حق العباد بليرا لبدا بالدنيا آدنا حق أنتم كنوا لهاي إنه لبدا إسكيل عليه حق الله إنه إلى للدنيا وإلهي لما عمل للدنيا إنه حق العباد إلى للدنيا وآدناها سيد اللوجو تلقى ولما عمل للدنيا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء دمشي ونوفرنت إن شاء الله تعالى ولالك وحن إلهي وقبر ينات إلهي جل جلاله وحونا قودونين إلهي سجنا وإلهي وكالميو قيامها نونا ماركتا وحجة ولباطة ونكلا كل من الدنيا وناقي وكلتك إن شاء الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أحمد كاش oo isna kamid ah macaamiisha Amal Express ayaa ku farxay in Amal Express furto xarun weyn. waxa maanta farxad iyo reereen iyo bishaaro noo ah inaanu ka qayb galnay furitaanka xafiiskii weynaa ama xaruntii weyneed ee Amal dalka Norway ee magaalada Oslo Amal Express oo uu hogaaminayo Xasan Axmed injineer Xasan Cukur. ugu dambeyntii ayaa website-ka warcusub.com waxa u suurta gashay in uu wareysi yar ka qaado injineer Xasan Axmed Warsame oo ah madaxa Amal. injineer Xasan ayaa sheegay in Amal Express siinayso agency ganacsatada rabta inay furtaan xafiis xawilaad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حسن داير aad iyo aad ay u mahadsantahay kulankan aad waqtiga ugu soo siisay inaad nala kulantid iyo shabakada caanka ah ee warka cusub. xawaalada Amal horta xawaalad mustaqbal dheer ah oo jirtay waxa kaliya oo hadda aan ku soo darnay waxa weeye anagoo furnay xaruntii weyneed oo Amal
oo aan ka furnay meel aad iyo aad center u ah dadka bulshada Soomaaliyeed oo adeegyada kala duwan aan u qabanana ay runtii naga heli karaan oo inagu soo booqan karaan. Xarunta weyn waxay dadku u sahlaysaa si sahlan inay nagu soo booqdaan noogana helaan macluumaadkii iyo baahidii looga bartay Amal Express. sidoo kale waxaa u suurtooday Amal oo aniga aan mas'uulka ka ahay inay hesho shati weyn oo ka hawlgeli kara Norway dabooli karana baahida weyn oo ay Soomaalida qabto. shatigaas oo ah shati runtii muhiim ah oo dadkii qofkii ugu horeeyay Soomaali helay aan ahay, kaas oo sahlaya in aan lacag badan diri karno, sameyn karnana wakiilo u diiwaan gashan dawladda oo agentiyaal ah, taas oo hadda aan hawsheeda xoog aan ugu jiro oo aan rabana inaan bilaabo wiigagan soo socdo aan ku diiwaan gelino dawladda ayna u shaqeystaan si sharci ah. dawladdan ay ogsoon yihiin inay yihiin dad la shaqeysta Dalmar Money Transfer oo ah company hadda aniga aan mas'uulka ka ahay oo geeska kalena si fiican uga shaqeysta Amal Express. Amal Express waxay ugu weyn oo hadda aan xarunta ugu furnay waxa weeye in laga dirsado lacagaha ay sidoo kale bixiyaan lacagaha. sidoo kale maadaama aan ku naalno meel weyn oo bulshada Soomaaliyeed baahideeduna ay badan tahay, waxaan rabnaa inaan ku soo kordhino sidoo kale sameynta mobilada. Xarunta weyn waxay dadku u sahlaysaa si sahlan inay nagu soo booqdaan noogana helaan macluumaadkii iyo baahidii looga bartay Amal Express.